And I believe that somehow, probably very unwittingly, you are a catalyst in this whole incident. Okay? There's a possibility that they haweeneydan ay booliiska su'aalaha weydiinayaan waxaa lagu magacaabaa Rachel Waterman. markii ay jirtay da'da 16 sano waxay la heshiisay saaxiibkeed iyo nin kale si ay u disho hooyadeed kadibna ay ka dhigto in hooyadeed ay ku dhimatay shil baabuur. haddaba maxaa ku kalifay gabadhan faldambiyeedkan aadka u foosho xun sidoo kalena ay ku dhiirato inay disho mid ka mid ah waalidiinteed? haddaba intaan bilaabin muuqaalkeena maanta hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelino uusan ku dhaafin. 14 November sanadii 2004 magaalo yar oo lagu magacaabo Greg ee ku taala gobolka Alaska ee dalka Mareykanka. Booliiska waxaa soo wacay nin ugaarsada ah kaasoo sheegay inuu arkay gaari ku dhex gubanaya kaynta dhexdeeda. isla markiiba booliiska ayaa si degdeg ah ku soo gaaray goobta. waxay u imaadeen gaarigii oo wada qiiq sidoo kalena aad u gubtay. markii ay fureen gudaha gaariga waxay arkeen waxay aad uga naxeen. waxa meesha ku gubanayay haweeney aad looga yaqaan magaalada. markii hore booliiska ayaa u maleynayay inuu ahaa shil, balse waxaa jiray dhacdooyin ay booliiska goobta ku arkeen kuwaasoo keeni kara shakiga ah in haweeneydan aysan ku dhiman shil balse la dilay. su'aasha inta badan booliiska isweydiiyeen ayaa ahayd maxaa meydka haweeneyda dhigay kursiga dambe ee gaariga haddii ay ahayd darawalka gaariga. baaritaano dheer kadib booliiska ayaa ku dhawaaqay in haweeneydan aysan ku dhiman shil balse la dilay. Laura iyo Doug Waterman waxay ahaayeen lamaane caan ah oo laga ixtiraamo bulshada dhexdeeda. waxaana u joogay wiil iyo gabar lagu kala magacaabo Geoffrey iyo Rachel. dadkii deegaanka ee aqoonta u lahaa Laura ayaa ku tilmaamay inay ahayd qof naxariis badan sidoo kalena aad ugu dadaasha carruurteeda sidii ay u gaari lahaayeen mustaqbal wanaagsan. 13 November Laura ayaa fiidkii ku qaadatay rug ganacsi taasoo uu ka socday shir ay isugu imaadeen dadkii deegaanka, halka ninkeeda Doug uu ku maqnaa meel ka baxsan magaalada. sidoo kalena gabadheeda Rachel ayaa ku maqneed magaalo lagu magacaabo Anchorage si ay halkaas uga qayb gasho tartanka kubadda kolayga. kadib markii uu soo ilaaday shirka, Laura ayaa kaligeed soo aaday guriga waxayna isku diyaarisay inay seexato, laakiin nasiib darro habeenkan ayaa noqon doona habeenkii ugu dambeeyay ee nolol lagu arki doono Laura. Doug iyo Rachel ayaa guriga ku soo laabtay maalinkii xigay. waxay ka war heleen Laura oo ka maqan guriga sidoo kalena uusan oolin gaarigeeda. sariirta Laura ayaa ahayd mid gabi ahaanba isku dhex yaacsan sidoo kalena ay dhalo qamri ah dul taalo miiska dushiisa. midda la yaabka leh ayaa ah in Laura ay gabi ahaanba cabi jirin ama isticmaali jirin qamriga. Doug ayaa meel kasta ka raadiyay xaaskiisa wuxuuna wacay dhammaan Laura asxaabteedii, laakiin nasiib darro qof walba wuxuu u sheegay inay ugu wardambeysay habeenkii shirka. Doug ayaa u muuqda mid aad uga walwalsan in xaaskiisa ay ku dhacday masiibo ayaana wacay booliiska iyadoo weli nolol iyo geeri midna lagu helin Laura. Rachel ayaa go'aansatay inay aado dugsigeeda. macallimiinta ayaa sheegay markay imaanaysay dugsiga ayba u muuqanin qof ay ka maqan tahay hooyadeed. macallimiinta ayaa u yimid waxayna weydiiyeen in xaalkeeda uu fiican yahay iyo in kale. waxay ugu jawaabtay in hadda ay haynin murugo sababtoo ah waxaa laga yaabaa hooyadeed inay cabtay qamri zaa'id ah ayna sidaas shilka ku gashay. arrintan ayaa la yaab ku noqotay macallimiinteedii iyagoo aad ula yaaban qof ay ka maqan tahay hooyadeed haddana sidan u hadlay. intaas kadib iyadoo ay waqti badan ka soo wareegin waxaa la helay gaari ku dhex gubanaya kaynta sidoo kalena ay ku jiraan haraadiga qof bini aadam ah. waxaa la sheegay waqtigaas in Rachel ay joogtay dugsiga waxbarashada. isla markiiba booliiska ayaa codsaday in dhammaan qoyska Waterman ay iskugu imaadaan guriga si baaritaano hordhac loo sameeyo. intaa kadib booliiska ayaa xaqiijiyay in haraadiga laga dhex helay gaariga dhexdiisa in 98% ay u badan tahay meydka Laura, laakiin hadda aysan si buuxda u xaqiijin karin. qoyska Waterman ayaa aad uga naxay warka ka soo baxay booliiska, balse murugadoodii ayaa sii laba jibaaratay kadib markii ay booliiska xaqiijiyeen in Laura aysan ku dhiman shil balse la dilay. Doug ayaa aamini waayay Laura in la dilay wuxuuna sheegay inuu aad ula yaaban yahay sidee suurtagal ku noqotay sababtoo ah Laura ayaa ahayd qof bulshada dhexdeeda laga ixtiraamo ayna jirin qof ay ugu yaraan ismaan dhaafeen. su'aashiis weydiinta mudan ayaa ah yuu noqon karaa qofka dhibaateeyay Laura oo kula kacay dilka naxariis darrada ah. kadib markii ay booliiska xaqiijiyeen in la dilay Laura, dambibaarayaasha ayaa amar buuxa ka helay maxkamadda taasoo u fasaxaysa inay si buuxda u baaraan guriga qoyska Waterman. dambibaarayaasha ayaa guriga ka helay agabyo kala duwan sida gloveska gacmaha la gashto, xarig iyo fiilooyinka korontada. guriga ayaa sidoo kale u muuqday mid aan waxba laga qaadanin. isla markaaba booliiska ayaa ogaaday
in qofka ka dambeeyay dilka uu yahay qof aan sidaa uga sii fogeyn qoyskan. dambibaarayaasha ayaa bilaabay inay su'aalo weydiiyaan dadkii aadka ugu dhowaa Laura, iyagoo ka bilaabay Doug iyo Rachel. laakiin dambibaarayaasha ayaa xaqiijiyay in Doug uu ku maqnaa meel ka yara baxsan magaalada, waxaana sidaas looga saaray dadkii aadka looga shakisanaa. booliiska ayaa ogaaday in Rachel ay saaxiib dhow la tahay laba nin oo lagu kala magacaabo Jason Arant iyo Brian Redel, kuwaasoo da ahaan aad uga weynaa iyada. Rachel ayaa la sheegay inay jirtay 15 sano markii ay la saaxiibaysay Brian, kaasoo isagana jiray 24 sano. markii ay in muddo ah wada socdeen, Brian ayaa Rachel baray saaxiibkiis Jason, kaasoo isagana sidoo kale jiray da ahaan 24 sano. hooyadeed Laura ayaa la sheegay inay aad uga soo horjeeday xiriirka ka dhaxeeya Rachel iyo Brian, waxayna ahaayeen kuwa mar walba isku khilaafi jiray xiriirkan. dambibaarayaasha ayaa u yeeray Brian iyo Jason si su'aalo looga weydiiyo dilkan, balse waxay labadooduba dafireen inay wax luga ku leeyihiin dilka Laura, iyagoo markaasna ku andacooday inay labaduba wada joogeen guriga Brian habeenkii uu dilka dhacayay. laakiin markii dambe oo dambibaarayaasha cadaadis dheeraad ah saareen, Jason ayaa cabsaday, wuxuuna daaha ka qaaday in Brian uu yahay dilaaga uuna isaga kaliya waday gaariga, wuxuuna ogolaaday inuu ku marqaati furo Brian. ayaa isagana dhinaciisa sheegay in Jason isku mid ka yihiin ama ay labaduba ka siman yihiin dilkan. intaas kadib Brian iyo Jason ayaa la keenay saldhigga, waxayna ugu dambeyntii wada qirteen labadooduba dembiga, iyagoo tafaasiil faahfaahsan ka bixiyay dhammaan wixii dhacay habeenkaas. Brian ayaa la sheegay inuu wada xiiray wixii tin ahaa ee ku yaalay jirkiisa si uu wax caddayn ah u reebin markii uu imaanayay guriga qoyska Waterman. I took her down to the kitchen. I asked her to point out where her purse and her keys were. She pointed with her hands. Then I went and got a wine bottle. I took the gag off, undid her hands, asked her where the glasses were, wine glasses. She pointed it out, gave the wine glass to Lori, filled it up, told her to drink. She drank. kadib markii uu xoog ku cabsiyay dhala qamri ah, wuxuu ku qasbay inay fariisato qaybta dambe ee gaariga, isagoo markaas u kaxeeyay gaarigeeda meel kayn ah, halkaas oo sidoo kale uu ku sii sugayay saaxiibkiisa Jason. markii ay yimaadeen kaynta, Brian ayaa gaariga ka soo dejiyay Laura, wuxuu isku dayay inuu ka jabiyo qoorta kadibna dilo si ay dadka ugu maleeyaan inay ku dhimatay shil, balse Brian way u suurageli waysay inuu sidaas sameeyo. markii ay u suurageli waysay inuu ka jabiyo qoorta, Brian ayaa qoorta dhowr jeer midi kaga dhuftay ilaa markii dambe uu ceeji ku dilay. intaa kadib markay wada qirteen dambigoodii, dambibaarayaasha ayaa rabeen inay wax badan ka ogaadaan sababta ay ugu kaceen dilkan foosha xun, maxaana ka dhaxeeya iyaga iyo Laura. jawaabta ay bixiyeen labadan gacan ku dhiigla ayaa ahayd mid naxdin leh. sababta ay u dileen Laura ayay ku tilmaameen inay badbaadinayeen Rachel. dhanka kale, Rachel ayaa lahayd website ay ugu magac dartay My Creep Life, kaasoo ay ku soo qori jirtay eedeymo ay u soo jeedinayso hooyadeed, iyadoo ku adeynayso inay ku xadgudubto, sidoo kalena mar ay ka soo tuurtay jaranjarada. Jason ayaa sheegay in Rachel u sheegtay xadgudubyada ay ku hayso hooyadeed, sidoo kalena ay tusisay nabarro caddayn u ah xadgudubkeeda. wuxuu ku adkaystay in Rachel ay ahayd qofkii keenay fikradda ah in la dilo hooyadeeda Laura. intii lagu guda jiray waraysiga, Rachel ayaa sheegtay in waxa uu sheegay Jason ay marnaba dhihin, iyadoo sidoo kale sheegtay inaysan la socon in Jason iyo Brian ay qorsheynayaan inay dilaan hooyadeed. waxay sidoo kale Rachel aad u eedaysay hooyadeed, iyadoo sheegtay inay mar ugu goodisay inay midi ku jarjari doonto, kadibna hilibkeeda ay suuqa ku iibin doonto. eedeymahaas ay soo jeedisay Rachel ayaa loo waayay wax caddayn ah, iyadoo sidoo kale dadkii aqoonta u lahaa Laura ay sheegeen in eedeymahan ay yihiin waxba kama jiraan. Rachel ayaa waraysigii labaad sheegtay Jason inuu ahaa qofkii soo bandhigay in laga takhaluso hooyadeed, balse iyada ku gacan saartay ayna marnaba ka filayn Brian iyo Jason fal noocan oo kale ah inay ku dhaqaaqi doonaan. laakiin dambibaarayaasha ayaa Rachel weydiiyey haddii waxba aysan ka ogeyn ama aysan kala socon dilka hooyadeed, sidee ku ogaatay in hooyadeed ay ku dhimatay shil gaari ka hor inta aan la helin meydkeeda. Rachel ayaa markaan u muuqata inay ka soo xiratay waddo walba oo mamarsiyo ah, ayaa qiratay dambigeeda, balse waxay sheegtay inuu ahaa qorshaheeda oo keliya in la cabsi geliyo hooyadeed, balse qorshaha dilka uu lahaa Jason. 19 November sanadii 2004, Rachel, Brian iyo Jason ayaa si rasmi ah xabsiga loo taxaabay, iyagoona lagu soo oogay in ka badan 10 dacwadood sida shirqool, afduub, dil heerka darajada koowaad ah. Brian ayaa qirtay dambigiisa, waxaana lagu xukumay 99 sano oo xarig ah,
halka Jason lagu xukumay 50 sano oo xarig ah maadaama uu gacan ku siiyay Brian dilka Laura sidoo kalena keenay qorshaha in la dilo Laura. Rachel ayaa diiday inay qirato dambigeeda waxayna dacwadeeda soo jiitamaysay ilaa sanadii 2006 iyadoo Brian iyo Jason ku marqaati furayaan. si kastaba ha ahaatee maxkamadeynteeda ayaa ilaa 2011 socotay waxaana lagu helay dambi ah inay wax ka ogeed dilka balse si ficil ahaana aysan uga qayb qaadan dambiga waxaana lagu xukumay 3 sano oo xarig ah. haddaba haddii aad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalka waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay 3 sano ee lagu xukumay taasoo aniga xitaa ila noqotay la yaab intii aan diyaarinayay muuqaalkan. haddaba daawada sidee u aragtaa 3 sano ee lagu xukumay Rachel? misleedahay waxay u qalantay in lagu xukumo waqti intaas ka sii badan maadaama ay gacan weyn ku lahayd khaarijinta loo geystay hooyadeed Laura. fikirkaada waxaad noogu reebi kartaa commentiska sidoo kale ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka si ay noogu noqoto dhiirigelin mahadsanid.